bismillah. mid ka mid ah buugaagtaan kusoo qaadanay Mandis Book Club oo madal akhris oo ka tirsan PhD Center ayaa waxaa ka mid ahaa buugan oo la yiraahdo Limitless oo qoray Jim Kwik. buugu dabcan arrimo ka hadlaya si guud waa siyaabo wax loo barto iyo sidii aynu adeegsan lahayn awooddeena caqli, laakiin waxaan yara dul istaagi lahaa qayb uu bilowga buuga kaga hadlayo oo ku saabsan digitalka ama teknolojiyadda waqtigan iyo xilligan lagu jira casriga ah, siyaabaha taban ama dhanka khatarta ee negative-ka ee taban ee una saameeyo digitalku, gaar ahaan markay tahay aqoonta iyo fikirka iyo waxbarashada. wuxuu soo qaadanayaa 4 arrimood oo xarafka D afartuba ay ka bilowdaan, laba aad bay iskugu dhow yihiin oo hadday israacayno waa digital deluge iyo digital deduction. labaduba wuxuunbay ka hadlayaan waa ku hafashada xogta. marka xogtii badatay, informationkii hadday tahay wixii la akhriyayay iyo hadday tahay wixii la daawanayay iyo hadday tahay xataa waxyaabaha la iibsanayo oo shay kastaaba kumaanku nooc uu leeyahay, inay adkaanayso inaad kala garan weydo xataa sidii aad wax u kala dooranaysay decisionskaaga iyo doorashadaadii, inay adkaanayso mararka qaar xataa thinkingkaaga iyo critical thinking sidii aad u fikiraysay, problem solving sidii aad mushkilad u xallinaysay, iyo sidii aad wax u baranaysay xogta faraha badan lahayd u study garan lahayd ee aad u tarkiisi lahayd, aad u baran lahayd mudaakarada iyo habbarashada. heer ay bini'aadamku gaadheen digitalku siduu u saameeyey in wax walba google-ka ay weydiino iyo qalabka digitalka waxaan sameynayno iyo halkan tegayno. baxsiyadii researchada iyo aqoontii qofku uu fikirayo, aqoontiisa adeegsanayo, baadhayo, dadaalka gelinayay in si fudud qofku uu helayo klik ka xigto. arrimahaasoo dhan waxay saameynayaan qofka inaanu adeegsama fikirkiisii isla markaana aqoontiisii, dabeetana waa fikirkiina hoos u dhaco, aqoontiina ay noqoto mid liidata. markaa qofku wuxuu noqonayaa qof ku haftay xogtii oo fikirkiisana hoos u dhaco, aqoontiisana liidato, balse laga yaabo inuu isku malaynayo inuu aqoon badan hayo sababtoo uu ku dhex hafanaya keliyata kama turjunayso inaad aqoon leedahay. bini'aadamku maaha sida rikoodhka iyo cajaladaha inta wax lagu duubo oo markii loo baahdo la daarayo isla wixii soo celiya. waa inuu leeyahay caqli wax rogrogaya oo naqdinaya. marka caqligaas iyo habfikirka noocaasa iyo qaabku bini'aadamku wax u baranaya waa hoos u dhacaysa. xalku waxa weeyaan in qofku marka hore ku baraarugsanaado khatartaas oo isku daya bal waxoogaa juhdiya inuu ku daro oo aanu isku halaynin xogta faraha badan leh, iyo sidoo kale inuu barto xirfadda sida wax loo barto. iskuulaadka badana iyo jaamacadaha wuxuunbaa lagu bartaa wixii la dhiganayay what to learn, laakiin laguma barto how to learn. marka labada xirfadood ayaa qaybtan deluge-ka iyo deduction-ka xal u ah, inaad barato sidii wax loo baranayay iyo inaad barato sidii loo fikirayay. D-da kale ama D-da saddexaad waxa weeyaan digital distraction. waa qaabka uu digitalku inoo jeediyo ama inooga dhabqiyo tarkiiska, dhugashada iyo diiradsaariyada wixii ay ahayd inaan muddo ku hakano si aynu u fahanno inuu la falgalno, ha noqoto waxaan akhriyayna ama dhegaysanayno amaba cilaaqadeena iyo markaan bini'aadamku iyagu wada sheekaysanayaan wada joogaan. inay fududahay qofka in laga jeediyo oo qalabkan gacjeebadaha ku wadana ayna jeediyaan ama ay naga dhabqiyaan. notification soo dhacay ha noqdo ama taleefonka u soo dhacay ama mararka qaar wax la sheergareeyay ama meelaad posta ku qortay oo aad weli ka fikirayso. inay fududahay markaas in mar walba lagu jeediyo oo madaxaagu mar walba buuxo oo awooddaadii tarkiis ee focus ee hoos u dhacdo. arrintan ayadana xalkeedu waxa weeyaan inuu qofku ogaado awoodda focuska ama diiradsaaryada oo uu awooddaas iyo xirfadaas kordhiyo oo kobciyo, kor u qaado. dabcan dugmadaada iyo diiradsaaryadaada ood kor u qaada nolosha meelo badan bay kaa saacidaysa. maaha keliya waxbarashada iyo waxyaabaad akhriyayso, cibaadadaada iyo salaadaada iyo qur-aankaad akhriyayso waxay kaaga baahan yihiin inaad leedahay soo jeed iyo caqli si fiican u dhuganaya cibaadada uu gudanayo. cilaaqadaada iyo wada sheekeysiga iyo isdhegaysiga dadka isdhegaysanaysa waxay kaaga baahantahay soo jeed buuxa. marka xirfadaas oo aad kor u qaadaa iyaduna waa xirfad kula dagaalamayso ama aad ku daaweynayso mushkiladan uu digitalku waqtigan leeyahay ee ah digital distraction. D-da u dambeysa waa digital
dementia dabcan waa arrin dhimarka la xidhiidha, gaar ahaan wuxuu ka hadlayaa waa xasuusta iyo xifdinta oo hoos u dhacday, taasoo keenaysa inay adkaato inaan wax badan aynan xasuusanin, xataa heeraynu gaadhno taleefanada qofku inuu xasuusan yahay kiisoo keliya, nambarkiisoo keliya, mararka qaarna xataa nambarkiisa uu darku ku xasuusto. haddii qofku bannaan u baxo taleefonku ka xumaado amba wax ku dhacaan, inaanu qof kale intuu taleefon ka qaato qof ehelkiisa inuu waco ee ku adkaanayso, sababtaa wuxuunbuu u bartay uu dependent ku ahaa mar walba inuu taleefonka ka baadho, taleefon kaleba maskaxda kuma hayo. meelaha qaar iyo wadamada qaar xataa baabuurta GPS-ta lagu xidhaa inay keento inaanu qofku wadooyinkii iyo magaaladii aanu keligii iskii mari karayn isagoo aan adeegsanan GPS-ka, oo haddii GPS ka xumaado iyadana ay adkaanayso mararka qaar inuu wadadii dhaqso ku helo. waqti yarun ka hor biniaadamka xasuustiisa way ka fiicneed, hadday tahay gabayada iyo xogta faraha badan speechada jeedinayaan iyo notiskooda wax walba madaxay ku qaadan jireen way ku hayeen, taasoo keenaysa in qofka madaxiisa iyo qaybta xasuusta maskaxdu sida murqaha kale ay dhismayso weynaanayso markastuu adeegsado, markastoo aanu adeegsanna ay daciifayso hoos u dhacayso. waxyaabaha xasuusta hoos u dhiga dabcan waxaa ka mid a gabowga iyo da-da, xanuunada qaar iyo dhaawac maskaxda soo gaadha. tanaan ka hadlayna intaa midna lama xidhiidho. qofki isagoo dhallinyara oo aan xanuun ku dhicin maskaxdiisa aan wax dhaawacii soo gaadhin ayaa haddana xasuustii aada hoos ugu dhacaysa. iyadana xalkeedu waxa weeyaan inuu arrintana ku baraarugo, bartana xirfadaha sida wax loo xifdiyo, sida loo xasuusto, techniques iyo farsamooyin wax lagu xasuusto. runtii marka laysku soo duubo arrimahaas waa arrimo dhammaantood midba midka kalena ay sii kaabayso amba ay saameynayso, oo matala xasuustaada kor u qaada ama hoos u dhacdaa waxay saameynaysaa focuskaaga iyo tarkiiskaaga iyo focuskaagana wuxuu saameynayaa qaabkaad wax u baranaysay, studygaagii iyo thinkinggaagii iyo habfikirkaagii. marka haddii hoos u dhacaan, midka hoos u dhacaa ka kale ayuu saameynaya, mid kastood kabcisaana ka kale uu saameynaya. intaan iskugu imana muuqaalo kale, wanigu Ibraahim waa berigeedila. asalaamu calaykum, mahadsantiin.